ciidamada danab ee Puntland iyo kuwa BSF ayaa hordhaweyd soo gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland iyagoona maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Laascaanood halkaasi oo ciidamadaasi ay sugayeen ammaanka caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiye. Ciidamadan ayaa waxaa hogaaminayay Jenaraal Jimcaale oo watay ciidamada danab isagoona soo gaarsiiyey ciidanka magaaladaasi Garowe ee caasimadda Puntland iyadoona taliska ciidanka danab ay war ka soo saareen arrinkaasi iyagoona sheegay in ciidanku ay si nabad leh ay ku tageen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland isla markaasina ay ka shaqeynayaan nabadda Puntland markastana ay ka shaqeyn jireen ciidamada danab nabadda Puntland iyadoona ciidamada BSF ay iyagu u jihaysteen magaalada Boosaaso ee xarunta maamulka gobolka Bari halkaas oo ay kasoo dhaqaaqeen horaantii markii ay soo tagayeen safarkooda. Fariinta ayaa waxa ay ahayd reer Nugaaleed waad ku mahadsantihiin soo dhaweynta ciidankiina waxaan idinga mahadcelinaa dhalinyarada rag iyo dumarba kala ah ee ciidanka ugu hortagay degmada Buuro Wadal wiilasheen waa soo galeen mana ahan kuwa la hor istaagi karo ayay raaciyeen magaalada iyo gobolka waa amni dadka qeexinaya dadka ha ka waantoobaan ugu dambeyn ciidanku wuxuu mar walba ilaalinayaa bay dhaheen amnigiina iyo kan guud ahaan Puntland waa sida sheegeen ciidamada danab Puntland.